Dr. Cabdi Jaamac oo kamid ah dhaqaatiirta waaweyn ee sida weyn looga yaqaan deegaanada Puntland siba gobolka Mudug kuna takhasusay cudurrada carruurta iyo dadka waaweyn oo waraysi gaar ah siinayay warbaahinta Rasan TV ayaa ka hadlay xaaladda isbitaalka Norway oo haatan loo bixiyay Shifa Hospital. Isbitaalka ayaa dhismo weyn ka hirgeliyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kaasi oo dhawaan xariga laga jari doono. waraysi gaar ah oo xafiiskiisu ku siiyay warbaahinta Rasan TV ayuu ka warbixiyay dhaqaatiirta ka howlgashay isbitaalka cudurrada ay daweeyaan iyo qalab casri ah oo aan oolin xarumaha kale ee caafimaadka oo ay la yimaadeen isla markaasina ay daweynayaan cudurradii dalka dibadiisa loo aadi jiray. waxa weeye waa aniga Dr. Cabdi Jaamac Maxamuud dhakhtar ka howlgala isbitaalka Norway la oran jiray hadda magaca u bedelno bixna Shifa Specialist Hospital oo takhasuskayga qaybta carruurta iyo qaybta kombiyuutarada ultrasound iyo sonologist iyo cudurrada gudahaba ama general physician ah. marka waxa weeye isbitaalka hadda waxaan ku darnay dhismo cusub actually isbuuca dambe furaynaa already hadda awal baa shaqeynayna isbitaalka wuxuu jiray markii hore waxa 18 sano weeye ayuu jiray isbitaalku marka insha Allah haddana waa ballaarinay oo waxaan ku soo darnay maadaama aan aragnay dad badan dalab nooga yimid oo ahaa markii hore anagu waxaan ku shaqeynaynay qaybta qalliinka ma aynu lahayn qaybta dhaliinka ma lahayn jiifka inaan emergency kaliya saxinimo jiif rasmi ma jirin waxaan ku darnay hadda dhismo cusub baan ku soo darnay oo aan aad u qalabaynay waxaan u subinay laba OT macnaha operation theatriska qolalka waxa lagu qalo oo one of the modern habka ugu modernsan Soomaaliya oo dhan baan oran ayuu ka mid yahay labadaas OT baan ku darnay qolalka qalliinka oo dabaqa hoose dabaqa kore aan ugu talagalnay emergency infections kamid ah iyo mid elective surgery ah qaybta qallimada oo laba nooc aan ku darnay qaybta dhaliinka aan ku soo darnay waxaan ku darnay kaleeta qaybta jiifka aan ku soo darnay waxaan keenay takhasusad kala duwan isbitaalka waxaan ugu fiicnay specialist hospital hadda marka hore takhasusad waa yaraayeen ilaa 3 baa fariisan jirtay 4 hadda laakiinse waxaan ku soo kordhay dhaqaatiirta kala ah qaybta neurology-ga iyo neuropsychiatry-ga cudurrada neerbayaasha iyo dhimirka waa ku soo kordhinay waxaan ku soo kordhinay kaleeto cudurrada dumarka awal oo daweyn kaliya ah markii hore laakiin hadda qaybaha qalliinka markii loo baahday in ay dhaliinka iyo xaaladaha emergency oo dhan wixii dumar quseeyo cudurrada dumarka iyo naagaha uurka dhammaan waa soo kordhinay asagana dhakhtarad waxaan keenay markii hore dhakhtar waxa jiro daweyn kaliya nugtada dhakhtarad daweynta iyo oo aan ka keenay dalka Itoobiya ayaa joogta hadda kaas waxa kale oo aan keenay dhakhtar Yemeni ah oo ah dhakhtarka ENT-da oo ku takhasusay ENT and head and neck surgery qallimada qoorta iyo burooyinka madaxa iyo dhoomaha iyo ENT ba ah daweynta iyo qallimadiiba ah baan soo kordhnay oo adeegsanaya endoscopy-ga ENT-ga iyo tubooyinka la geliyo cunaha sanka dhagaha iyo qallimada casriga oo xataa waxa ku qalay microscope oo ah weynaysa ah wax ku qalayo maadaama dhagtoo kale iyo sankoo kale ay yar yihiin oo ku qalayo taas waa midaas waxaan kaloo soo kordhinay dhakhtar qallimada kaliyaha waxa gobolkan ku badan aad dadka ka cabta cudurrada kaliyaha iyo kaadi mareenka dhagxaanta ku badan marka dhakhtarka urology-ga soo kordhinay asagana waa kaas weey waxa kaloo aan soo kordhinay qaybta qalliinka xandullaha iyo neurosurgery waxa la yiraahdo neurosurgery oo qallimada ah oo dhakhtarka asna waa waxba ku qalaya halka kan asaguna waa jooga waa kaas waxaan kala soo kordhinaynaa oo hadda qalabkii noo maqayo imaanay mar dhow qalliinka loo oran jiray laparoscopy-ga la yiraahdo surgery oo dadku u yaqaanaan laakiinse qalliinka laserka awal loo aadi jiray Muqdisho asagana waa soo kordhinay iyo dibadaha loo aadi jiray iyo qalliimada dibadaha loo aadi jiray tusaale ahaan dhakhtarkan ENT-gan حتى قلمada uu subin doon waxa weey lagu ma subin magaalooyinka weyn ee Soomaaliya ku yaala sida Hargeysa iyo Muqdisho marka waxa waa dhakhtar assistant professor gaaray fursad baan u helnay nasiib ilaah baa noo sahlan leeyahay ninkaas oo kale yimaado kaleeto marka taasna waa sidaas waxaas intaasan soo kordhinay waxaana aan arinta u subinay aan arinta u subinay dalabka nooga yimid bulshada maadaama ay dhaheen markay qadamaadkii service-kii dhan in kama helno oo markii loo baahna meel kale ama dibadaha noo direysaan markaan cudurka ku aragno marka hadda saas aawadeed baan ugu qasabtay inaan ummadii aan u soo korno qadamaadka inkastoo qarash badan naga galay haddana waxaan rabnaa inaan u qidmayno dadka qalabaynta iyo dhismaha markii waxaan naga galay qarash aan waayaan soo laabanay laakiin waxaan ugu talagalnay inaan dadka u qidmayno dabcan
dalka dibadda soo dhacay ma hadda kadib shifa la imaanaya isbitaalka ha insha Allah dhaqaatiirta guud ahaan ka howlgalaya isbitaalka tira ahaan intee gaaraysa waxay gaarayaan macnaha dhakhtarka neurology-ga oo laba nooca midka qaliimada iyo midka daweynta dhimirka ah iyo midka qaliimada ah neurosurgery ah laba weeye dhakhtarka maqaarka iyo cudurrada galmada la STD la yiraahdo sexual transmitted disease ka Dr. Ainshe anigoo ah dhakhtarkii generalka iyo dhakhtarka caruurta ah iyo dhakhtarka gynecology-ga iyo dhakhtarka urology-ga iyo dhakhtarka ENT-ga iyo dhakhtarka waxa hadda nagu soo biiray gastroenterology-ga habka dheefshiidka oo tubooyinka endoscopy-ga iyo colonoscopy-ga tubada la geliyo dhoonta adeegsanaya oo calooshii lagu soo eego iyo mindhicirada hoose labadaas dhakhtarka adeegsanaya iyo dhakhtarka orthopediga oo lafaha qalimada marka waxa almost waa 10 dhakhtar oo taqasaad kala duwan leh iyo dhakhtarkii emergency-ga asaguna marka dhismo cusub ah soo siyaasay in kasta wali xariga si rasmi ah looga jarin waa qaab standard caalami u dhisan yahay dhalinyaro badan oo caafimaadka bartay baa jira oo jaamacadaha ka baxay qaar haatan waxba aan qaban marka fursado dhalinyarada ma ka uga balan yahay isbitaalka actually dad badan baan horta wadanka waxa ka taagan shaqo la'aan daran waan arkay dhalinyaro badan baan soo apply gareysay laakiin anagu moodo dabooli kar laakiin waxaan u suubinay shaqo baan oran karaa hadda ilaa dad ku dhow 15 oo ah xagga laboratory-ga soo bartay nurses-ka scrub nurse ama OT nurse waxa la yiraahdo qaliimada ah iyo dhaqaatiir xataa laba dhakhtar oo general iyo dhaqaatiir Soomaali hadda takhasuska lafaha iyo dhakhtarka gastroenterology-ga ee tubooyinka endoscopy-ga iyo colonoscopy waa laba dhakhtar oo Soomaali oo takhasusaad kale marka dhaqaatiirtii general physician-ka ama emergency-ga waxa weeye takhasusaad kale waa ku soo korinay maaha inay ka waxaan qaadanay dhaqaatiir Soomaali oo takhasus leh iyo kuwa ajaanibta oo takhasuskooda aan Soomaali laga helaynin marka waxaan abuurnay actually waxaan oran karnaa ilaa 10 iyo xogaa qof oo leh nurses-ka iyo dhaqaatiirta baan u abuurnay ilaa 15 qof baan nagu soo korortay la'aan anagu waxaan sii shaqeynay 18 sano oo horeyna dad baa uga shaqeynay isbitaalka laakiin hadda ilaa almost 10 iyo xogaa qof baan ku darnay oo shaqaale ah waayo doctor isbitaalka ay iskabay ma kaaliyada iyo dad Soomaaliyeed wax ka yeeshaan dhismahan qaabkee loo geliyay والله waxa weeye waxaan anaga lacag aan jeebkeena ka soo bixinay iyo lacag aan diin u qaadanay bangiyada ka qaadanay labadaas sabab weeye waxaan jaalidna ka helnay ma jirto waxaan ka helnay meel kale iyo hay'adana ma jirto waxa weeye lacag aan jeebkeena ka soo saarnay oo lacagtii aan maadaama sidee uu shaqeynay isbitaalka markii aan mashruucan bilownay 16 sano wixii aan meel dhigaynay iyo bangiyada oo aan diin ka qaadanay sida bangiga Amal Bank oo kale iyo waayo marka fariinta ugu dambaysa bulshada Soomaaliyeed iyo kuwa Puntland ku daawanaya oo dirayso dhinaca caafimaadka ku saabsan sababta aan diray horta waxa weeye mid u horeysa dadka waxaan arkay dad badan oo qadamaad simple halkan ka heli karay ama inay dibadaha iska aadaan wax weyn ayadoo aysan jirin oo waxaan oran karnaa taas waxa jirta kalsooni darro ay ka qabaan dalkooda iyo dadkooda aan oran karnaa waan u maleynayaa ama ay keentayba burburkii waqtiga dheer lagu jiray oo ay keentay inaysan aamini karin maadaama marka hore aysan u shaqeyn jireen dad aan ahayn dhaqaatiir ahayn oo kale dadka qaar badan way jireen waagi horeeto anigu hadda waagan gaalkacay yimid oo kale 18 sano ka hor ama 19 sano ka hor dad dhakhtar lafo kale ma joogo waxa lafaha qali jiray dad aan xataa nurse ahayn marka taas waxay keentay kalsooni darro hadda laakiin dhaqaatiirtii wax waa la soo bartay oo cilmigu waa kordhay marka taas waa midaas weeye marka waxaan hadda ugu la talinayaa dadka inay dalkooda aaminaan dadkoodana aaminaan ay halkaan ka heli karaan qadamaadkii oo dhameystiran dhinac walba dabcan waxa jirta laga yaabaa inay hadda sida oncologist oo kale qaybta kansarka daweyntooda iyo qaliimada aysan jirin laakiin taas laftigeeda baaritaankii kansarada oo dhameystiran waa keenay daweyntii oncology waa mashruuca lagu daweyn lahaa ama dawooyinkii chemotherapy ahaa taas baan weli naga dhiman laakiin intii kaleeto maca qaliinkii xandullaha waa qaban karnaa marka arrimaha awgeed dhan waxay keenaysaa in dadkooda aaminaan maadaama ay heli karaan dad badan baa waxay dhahaan markii ay naga tageen oo aan waxaan u sheegnay meel walba looga sheegay haday India aadeen ama haday Turkiga aadeen ama haday meel kale aadeen Nairobi aadeenba waxay yiraahdaan markay soo laabtaan intaad nagu sheegteen baan la ku sheegay xogaa dawada quality-geeda laakiin hadda anagu waxaan subinaynaa xataa dawada quality-geeda in ay baaritaanada inaan dhinac walba hagaajino insha Allah
qalabka aan keenay hadda waxaa ka mid ah cusub oo aan horey xataa Puntland oo leeyahay magaalooyinka Soomaaliya waaweyn baa laga yaabaa meelo badan sida mammographic oo kale kansarka naasaha aalada lagu baaro kale mammographic iyo laparoscopy oo aan markii hore wax badan aysan jirin iyo biopsiyada in lagu baaro habka biopsy wax lagu baaro qalimada markii la qalo cadadkii waxaasna lagu baaro waxyaalahan soo kordhinay iyo dabcan waxa kamid ah qalabka aan soo kordhinay hadda mashiinka kala saaraya dhiigga oo serum iyo u kala saaraya waxa la yiraahdo blood cellska for example qof dhiig in lagu soo baahan ama anemia aad u dhiig daran 4 HB dhiig dhan lama siin karo oo dhiigga caadiga biyaha laakiin markii la kala saaro bur iyo biyo loo kala saaro mashiina waa la soo kordhiyay Soomaalida bur iyo biyo dhammaan dhiigga unugyada dhiigga oo caskari in lagu shubo qofkii plasma u baahan for example cudurrada qaba bleeding disorders ama dhiig baxyada qaba oo kaleeto oo xinjirowga qafiif ah in dhiig xinjiraha kaliya lagu shubo qofkii u baahan plasma kaliya lagu shubo oo difaaca dhanka ah marka waxaasaan ku soo kordhin hore aan dalka u oolin isbitaalka Shifa Hospital oo horey loo oran jiray Norway ayaa haatan dhismo casri ah ka hirgeliyay magaalada Gaalkacyo siiba xaruntii hore ee dhismihii Norway oo haatan laga dhisay xarun kale oo casri ah taasi oo shacabku siyaabo kala duwan u soo dhaweeyeen wuxuuna noqon doonaa isbitaal caalami ah oo dalka gudihiisa looga yimaado maxamed lakiin Raadsan TV Gaalkacyo